السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبرشادة فلندسكا كبرو فانولا جنال ليغن نذرلاندز تال قسبريك كوبانا يا هلكن كسو دينينا وعشر كيني أفراد ولا waxaan rajeynaa insha Allah inay ka faa'iideysan doonaan qasbaraga wuxuu dhici doonaa sidan laba xaaladood noqonaya in markastaba aad erayada cusub aad mar walba aan ku soo kordhino meesha iyo wixii casharka ku jira inaan casharka isla falanqayno marka casharkeenu isla falanqaynayna idinkoo mahadsan casharkana wuxuu ka bilaabanayaa var comier vandaan eraygaas laba xaaladood u qaybsamaa oo waxay noqonaysaa var comier vandaan haddii lagu dhaho halkee ka timid maanaa where do you came from halkee ka timid waxay noqon doontaa marxaladda hadda jooga waqtigan hadda lagu hadlayo teqvortid iyo wax baasti ah labadaba waa loo isticmaali karaa laakiin ujeedada waxay tahay eraygan wuxuu tilmaamaya halkee ka timid haddii aad magaalada ka timid waxaa leedahay haddana magaaladan ka imid ama wuxuu noqonayaa xagee ka timid original wadanka aad ka soo jeedaa laga hadlayaa varcomier vandaan saasuu ka hadlayaa marka inaad ku fikirto mar walba oo maaragtaa tiraahdo halkee ka timid oo macnaheedu yahay varcomier vandaan halkee ayaad ka timid kusbarageena marka laba qaybood uu qaybsamayaa waxaan rajaynayaa walaalaha inaad ka faa'iideysan doontaan insha allah idinkoo maaragtay ku mahadsan mar walbana waxay idiin soo tubinaa waxayda anfacay marka nambaro kusbaraga u yaalaa dabcan waxaa laga bilaaba hallow macnaha waxaa waaye waa ku salaamay iyo salaan sare iyo hay iyo ma fahanti erayada noocaasa loo isticmaalaa insha allah marka waa hadalladaas waa dhegeysi wacan Hallo. Hoi, Hoe gaat het met jou? het gaat goed met mij. Hoe gaat het met jou? Goed. Spreekt u Engels? Een beetje. Ben je Amerikaan? Ja, Waar kom jij vandaan? ik kom uit Californië. Leuk je te ontmoeten. Ook leuk jou te ontmoeten. sida qisbaraga ku maqlayseenba wuxuu leeyahay varcomier vandaan halkee ka timid hallow waa ku salaamay ama salaan ama saan dhahna anaga oo ay see tahay aan ka bilaabna ma fahante qisbaraga wuxuu u dhexeeyaa laba qisbarag waxaa la dhahaa laba qof wada hadlaysa hooyina waa isticmaalaan waa sida dadka markii la salaamo waan ku salaamay camal ama salaan sare waxaad dhahdaanba waxaa laga bilaabay hoe gaat het met jou hoe gaat het met jou adiga sidee ayaa hee tahay sidee ayaa tahay jawaabta maxay noqotay het gaat goed met mij het gaat goed waan fiicanahay aniga waan fiicanahay aniga saas sooma dhahna aniga aan ka bilaabna soo maa waa fiicana laakiin iyaga waxay ku bilaabay het gaat goed met mij ya kabacdi waxaa qusbaraga noqday goed qofkii marka hadal kale ah uu ku jawaabay goed uu iska soo gaabay isagana wuxuu yidhahda adigana sidee taa la yidhi ya hoe gaat met jou isagana wuxuu ku jawaabay uu soo gaabiyey waa goed spreekt u English luqadda Englishka ma ku hadashaa jawaabta maxay noqotay yaa waa ku hadlaa marka meesha waxaa ku cadfan varcomier vandaan halkee ka timid isaga markaas wuxuu leeyahay icomod california ka imid ama biye american maa tahay aa ka horeysa haa americana ahay varcomier vandaan halkee ka timid icomod california ka imid sayidka lagu magacaabo markaas wuxuu yidhahda lake ontomotin lake waa ku faraxsanahay ti ontomotin inaan kula kulmaa qofka marka wuxuu leeyahy anigana sidoo kale ok haddaa aragto waxaa waaye two waa englishka say isticmaalaan
ook leuk jou ontmoeten adiga inaan kula kulmo waa ku faraxsana marka qisbraaga waa qisbraag aada u wanaagsan luqadda markaa rabta inaad iska dhista waa waxyaalaha u baahan taha mar kastaba inaad maaragtay isticmaasho luuqaddana markaa baranaysa inta badan ha cabsanin Hallo, hallow saa ku salaam Hoi, hooy hoe gaat het met jou? sidee tahay het gaat goed met mij. aniga waa fiicana Hoe gaat het met jou? adiga sidee tahay Goed. Spreekt u Engels? waa fiicana ingiriis baan ku hadasha Een beetje. wax yar Ben je Amerikaan? amerikaan maa tahay Ja, Waar kom jij vandaan? halkee ka timid ik kom uit Californië. california ka imid Leuk je te ontmoeten. la kulankaada waa ku faraxsana Ook leuk jou te ontmoeten. ana sidoo kale waa ku faraxsana marka qisbragaas waxa waaye inta ku jira marka erayada ku jira haddaynu isla fiilino vaar halkee waa xaggee ka timid com vaar halkee com ka timid com yee aa la dhahay yee adiga waaye adiga halkee ka timid hallo waa salaan waaye qisbrag wada hadal waaye leer waa barasho waaye huu gaat het met jou sidee adiga tahay hud waan fiicanahay hud waan fiicanahay erayada kale ku jira waxa sprekie adiga ma ku hadashaa sprekie english ma ku hadashaa ama sprekt u haddii la dhaano waxay noqonaya informal qof kale u badana waxaa loo isticmaalaa qofkaada aqoonin qofkaad taqaanana yee badanaa isticmaala sprekie ya ma ku hadashaa luuqadda adiga ma ku hadashaa ingiriiska af ingiriiska iyo yee adiga waay american waa american miyaa tahay leuk waa war aada u quruxsan waay marka macnaha leuk dharka kale waa loo isticmaalo o echt leuk aada bay qurux badan tahay oo kale iyo ama qofka markaad dhahdo waa ku casume oh leuk gezellig marka waa waqtigaan wada qaadanaynaa waa wada farxayna camal waay waa haddana waan ku faraxsana waay macnaha meesha ugu jirto leuk iyo untumute untumuten waa la kulankaaga waan ku faraxsanahay og sidoo kale waxaad leedahay leuk ook leuk ontmoeten ja ook leuk jou ti ontmoeten xarfu tiyaa la gelinayaa marka sidoo kale waan ku faraxsanahay lakula binyey marka bin haddaa aragto waa verto b anaga isticmaali jirnay waa magac loogu talagalay inuu personamka ama pronamka ku xig magacyaalkeenu ku xigso magacyaalka waxaa waay aniga adiga iyada asaga ma fahanta ig iyo hey iyo markaad isticmaalayso magacyaala la dhaha qofay ka turjumaya marka ig leeda waa aniga marka waxaa leeda ig ben aniga waa waay ma fahantay marka binyey ha waa ma waxaa waay waxaa adiga tahay american binyey americana marka qaabkaas waa qaabka ugu fudud ee luqadda aad ku baran karto fadlan mar kastana waxaa isku daydaa wixii aada maqashay ku celceliya adigoo mahadsan luqadda barashadeeda mar kasta waxaan isku dayeynaa wixii idinka anfacayna soo gudbina walaalahan waxaan leeyahay wax alla wixii fariina commentiska noolagula wadaag